بسم الله الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walaalyaal maantay waxaan joognaa magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ninkan aad u jeedaan waa nin markhaati ka ah oo u jeeday markii la tooganayay walaalkina Cabdulxafid wuxuu ka shaqeynayay sartaas halkaas u dheer oo loo yaqaan Brisbane oo saddex dhismo oo ay Soomaalidu degan tahay wuxuuna ka ahaa waardiye wuxuuna la dagaalamay daraaga iyo sex trafficking oo aad u didanaa haddaba seebe ku dhacday dilkii qofka toogtay midabkiisu seebu ahaa iyo sidii waxa u dhaceen sir hello how are you sir Okay, Sean. I know that you are shocked, and I can tell that you are very shocked, and because of what have you seen for the killing. But how long you lived in this area? Since about 1993. 1993. That's when Somalis came this area, right? Yes. For that time, yes. When they started trickling in. Can you repeat your name for the record again? Sean. What is your name? Sean Allison. So, how is it a crime area, or how many crimes have you seen personally as a witness in this area? Well, I've witnessed a couple of shootings here over, the years that I've been here, but there's been some that I didn't see that happened here. Mm-hmm. But you saw the one yesterday. Absolutely. So, can you tell us how the incident happened or took place yesterday? Well, I and a friend were sitting here. And we heard some commotion. From there? Yeah, up by a white van parked there. And then? So we went out into the street to see what was going on. This black car? And then saw a man on top of another man that was on his back. I don't have it. And then boom. What he was saying, the man that was laying on the back, in his back, what he was saying? He said, I don't have it. What did he mean that? Well, maybe money. The other person must have been asking him for something or money or whatever. Possibly a robbery. And then the gun went off. Me and my friend came running back up into the yard here. And the guy took off north on Pleasant Avenue. How many shots do you hear? One. One shot. Some people are saying 2 or 3, boom, 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 or just one shot. One shot, point blank to the head. Have you seen the guy? How he looked like? Was he Somalian guy or white or Mexican? He was a young Somali male. For sure. He had a hoodie on. You sure that he was Somali? Yeah. How can you tell that you know Somalis and you live with them for the last since 1993 here? So you can tell that he's the facial features are a little bit different on Somali people than the average African American. Longer faces and. So we couldn't see much because he had a big hoodie on his head. But you saw the face a little bit, the face, but you cannot tell exactly who he is. He was dark, dark complexion. He had a dark complexion. Was he tall or short? He was tall, thin, and he had a hoodie on, blue jeans, and red tennis shoes. Was he fat or thin? Thin. Thin. How old do you think that he might be? Maybe 20s or 30s or 40s? Somewhere between 16 and 20, I would suspect. That's what you mean. 16 to 20? Somewhere between 16 and 20. Yeah, 16 to 20. Kind of young guy. Yeah. All right. So was he driving or just walking? On foot. Anyone with him? No. He was just alone. He was alone. Where he went? He went Which north. direction? Went north. To the north? On Pleasant Avenue towards Miller Towing. Was he running or just walking? He was moving fast. Fast. Running, but he was walking very fast. waxaan la joognaa Sean Allison oo South Minneapolis Mr. Sean Allison kana ahaa witness marqaati buu ku ahaa goobta ayuu joogay markii dib ku dhacay oo la dilay walaalkeen Cabdulxafid laguna toogtay halka kan shalayto taasi waa codka xorta ah ee TV-ga codka maatada waxaan ka codsanaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed jaaliyadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gaaladii ayaa ka marqaati kacaysa in la toogtay oo uu toogtay nin Soomaaliya waxaan idin leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu yiri walaalayaal wala taktumu shahada ba Allah yiri subxaanahu wa ta'ala marqaatiga qaranina Soomaaliya marqaatiga qaranina sheega isa sheega waad mahadsantahay thank you so much sir is it okay? We are planning now to pay almost 5,000 or 2,000 or 3,000 or
whatever, who can tell us? And is it okay if I give you some today? You don't want anything? No. You don't want anything. He doesn't want anything. But ofirso, حتى العقان قصية أيان إري وأنا يقدي ذي إن العكسيو. هذا All I بقى. want is him to get caught. Yes. Thank you so much. Thank you for saying the truth, and thank you for protecting the people, and thank you for saying the good things about what you know. walaalayaal meeshaas ay taagan yihiin gabdhaha Soomaaliyeed ayaa dhibkii ama toogashadii shalayto ay ka dhacday. waxaan idin sawirayaa haddeertaan xinjirtii ama dhiiggii goobtii lagu toogtay walaalkeen Cabdulxafid oo ay taagan yihiin hooyooyinkan Soomaaliyeed saad u jeedaanba. waa kana walaalayaal dhiiggii walaalkeen Cabdulxafid saad u jeedaanba. wata xinjirtiisi walaalayaal Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u naxariisto oo gacan ka xaqdarani ay dishay. dabcan waa la dhaqay dhiiggii laakiin waa aad u jeedaan Allah ha u naxariisto ayaan leenahay. waa xaafadda ay degto dadka Soomaalidu ay degto. halkan qofkii garanayo waa suuqii suuq weynaha Karmel iyo xaafaddii iyo masaajidyadii iyo meeshii ay ku yaaleen. dabcan suuqii Karmel wakaas halka ka dhisan calanka uu ka lasho wakaas. masaajidkii Khalid iyo xaafaddiina wataas iyo Istilek. booliiskii ayaa ilaa hadda goobitaan ku jira oo baarhaya. marka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu ka baryaynaa walaalkeen inuu naxariisto. walaalkeen Cabdulxafid waxa uu aad ula diriray daroogooyinka iyo haddii ay ku idmaayo sex trafficking oo uu ka diiday xaafaddiisa iyo area-diisa uu degan yahay. waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka baryaynaa inuu naxariisto. Soomaalidana uu ka dhigo kuwa qarankoodii iyo dalkoodii dhista hooyo. waxaan ka doorannay dalkeenna hooyo xaafadaha kan qabowgan barafkan iyo haddii ay ku idmaayo meeshan aad u jeedaan. si kastaba ha ahaatee Soomaaliyay gacmaha isqabsada oo carruurta iska daaya dhiigga walaalihiin oo aad daadinaysaan.